بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سوري وهذا والله لها قارقة يا خير كتشعل ما تعشها إنه إلهي سبحانه وتعالى تبن كان بريء هبينك ليلة القدر هبينك قدريد إلهي كو قدروا أحوال قرح بدن سنة كصوص عتا ma jecesha ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kuu qadaro arrimo qurux badan rabitanaanadaada ilaahay subxaana wa tacaala ku siiyo ilaahay subxaana wa tacaala arrimahaaga iyo danahaaga iyo axwaashaada ilaahay kuu qurxiya sanadka soo socota haddaba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay tanazzalu almalaa'ikatu waaruuxu fiiha biidni rabbihi min kulli amr ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay habeenkaas laylatulqadriga ee habeenka qadaridda ee la qadaro axwaasha ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay inay malaa'igtu soo degayso iyo jibriil inuu soo degayo amar kastana ay la soo degayaan khayr iyo barako iyo qadarida inay la soo degayaan ilaahay aayad kale wuxuu leeyahay fiiha yufraqu kullu amrin xakiim amar kasta ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku kala saarayaa habeenkaas oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku go'aaminayaa axwaasha sanadkaas soo socda walaalaha qaaliga ah haddaba walaalaha qaaliga aan ka faa'iidaysano aan ku dabaqno duco oo ilaahay subxaana wa tacaala aqdaar wanaagsan aan weydiisano aana dadaalna walaalaha qaaliga ah umuna caaisha allah ka raali noqdee waxay noo sheegtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu aad u dadaali jiray habeenadan khayrka badan waxay tiri umuna caaisha kaana rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa dakhala cashara markay tobankan soo galo tobanka habeen ee bisha ramadaan u dambaysa markay soo gasho shadda mi'sarahu guntiga ayuu adkaysan jiray wa axyaa leylahu habeenkiisana wuu weynayn jiray oo wuu noolayn jiray wa ayqada ehlahu ehelkiisana wuu baraarujin jiray haddaba walaalaha qaaliga habeenka khayrka badan oo ilaahay ku tilmaamay laylatulqadri khayru min alfi shahr habeenkaas ilaahay uu ku tilmaamay inay ka khayr badan yihiin oo ka fadligoodu dheer yahay macni 1,000 bilood oo u dhiganta 83 sano iyo dhowr bilood u dhiganta walaalaha qaaliga ah habeenka qaaliga ah ilaahay dhahay salaamun hiya xataa madlic alfajr habeenkaas waa habeen nabadgelyo ilaa fajarka uu ka soo baxo habeenka khayrka badan walaalaha qaaliga aan ka faa'iidaysano aan raadino aan ku dadaalno aan cibaadada ku dabaqna walaalaha qaaliga ah waxay la mid tahay adoo cibaadaysanaya 83 sano cibaado kastoo qurux badan hadday qiyaam tahay hadday duca tahay hadday dikri tahay hadday quraan akhris tahay hadday sadaqo tahay hadday tahay khayr kaste ay tahay walaalaha qaaliga ku dabaq waxay la mid tahay adoo 83 sano macnihii cibaadaysanayay qurunka iyo iska ilaali xanta dhibta macnihii dulmiga waxaas oo dhan iska ilaali waxay la mid tahay adoo dambaabaya 83 sano la mid tahay walaalaha qaaliga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala bisha ramadaan wuxuu ku tilmaamay ayaaman macduudaat ayaama la tiriyay waa ujeedaa walaalaha qaaliga haddeera bay noo dhalatay haddeerna way sii dhammaatay laxado kasta ee daqiiqad kastoo ka dhimana khayr iyo farxad iyo barako iyo khayr baa ka buuxa walaalaha qaaliga ah habeen kasta ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisu naaraha ka xoreeya walilaahi cutaqaa'u min annaar wadalika fi kulli leyla habeen kasta ayuu ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa naarta ka xoreeya waa waxa ugu qaalisan walaalaha qaaliga ilaahay naarta kaa xoreeyo bisha ramadaan walaalaha qaaliga ah ku dabaq oo yeysa dhammaan bisha ramadaan ku ducayso waxa ugu muhiimsan walaalaha qaaliga qadarkana lagugu wanaajin karo sidoo kale aad ku heli cutaqaa ku heli kartid waa ducada markaad axwaasha wanaagsan iyo arrimaha wanaagsan iyo dikriga badan iyo quraan akhris badan la timaado ducayso ilaahay bari subxaana wa tacaala iyo kuwa aad naaraha ka xoreysa igu dar qunuudka masaajidka hadaad tagto qunuudka maasha allah waaba haysataa ducada aamiinta dheh shiiqa sidoo kale haddaadan ku tukanaysa guriga waa inaad la imaato ducaa qunuud oo ku dartaa inuu ilaahay subxaana cutaqaagiisa kaa mid dhigo markastana ku dacayso ogowna walaalaha qaaliga ah habeenka waa habeen barako waa tobanka habeen ee ugu khayrka iyo farxadda badan ugu barakada badan ee sanadka ku jirta walaalaha qaaliga ah waa tobankan beri aan ku jirno raadi habeenkaas qadarida ilaahay inuu axwaal wanaagsan kuu qadarana ilaahay subxaana wa tacaala ducada qadarkay ka hortagtaaya ducayso ilaahay bari waxaa laga yaabaa inaa shaqi laguu qoro kadibna ducadaada ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu qoro qof ehlu janno ah marka ducayso ilaahay weydiiso qadar wanaagsan inuu ilaahay subxaana wa tacaala hormariyo habeenka cibaadadiisu waxay u dhigantaa 83 sano walaalaha qaali hal habeena 83 sano iyo dhowr bilood adoo cibaadaysanaya lamid tahay hal saac waxay u dhigantaa walaalaha qaaliga ah
sideed sano bay u dhigantaa hal saac oo cibaadaysanaysa habeenkaas sideed sannadood cibaadaysanay u dhigantaa hal daqiiqo waxay u dhigantaa konton maalmood inaa cibaadaysanaysay haddaba ku dadaal oo ha iska dayicin daqiiqad kasta oo habeenadaa ku jirta ha iska dayicin ma jiro daliil cad oo kuu sheegaya habeeno gooni ah walaalaha qaali sida habeenka 7 oo kale way jiraan walaalaha qaaliga ijtihaadyo iyo macnihii waxyaalo ay culimada sheegeen laakiin waxay dhahaan culimadu sida isku raacsan yihiin wuu wareegaa sanad kasta wuu wareegaa 25 sanad kale 27 sanadka kale 29 sanad kale 23 sanadka kale 21 walaalaha qaaliga khaladka ugu weyn ee dadka sameeyaan walaalaha qaaliga ma taqaanaa dadku waxay sameeyaan habeenada witirka bas inay dadaalaan waxay la mid tahay imtixaan 10 maxay sheegeen 10 lagu yiraahdo soo diyaarso oo 5 kamid ah soo diyaarsatay nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay walaalaha qaaliga 10 ugu dambeeya bisha Ramadaan inaan ku dadaalno oo ka raadino walaalaha qaaliga tusaale ahaan hadaa baadi ka dhunta raadinaysid ma qayb baa ka tagaysaa qaybna waad ka raadinaysaa ma dhici karo 10 habeen badadaal bay rabaa walaalaha qaaliga ha ku mashquulin qorax sawir ha ku mashquulin waxyaalo calaamado ha ku mashquulin 10 bariba cibaado isku mid ah cibaadayso ilaaha raxmaanka raxiimka wuu kula kulminaya walaalaha qaaliga diyaarso ducooyinkaaga 10 6 8 9 duco إلهي ويديس سبحانه وتعالى كفقوا هبينكا تليفوننا سوشيال ميدياها كفقوا آخر قرآن الكريم كا تسبيح دي تهريشي تحميد الليبو ذكري قبضي دعيسو سليق النبي عليه الصلاة والسلام بدي استغفار بدن قابل هبينكاس وإن الدنبية كا دغمان ولا لها قارقة مركز إجابة هليسا كددال والله قارقة خير فرحات بعد ما تيدي ودرجين الله سبحانه وتعالى إنه قدر والله لها قارقة أقدار قروح بضن إنه الله سبحانه وتعالى بينك خير كبضن نلقلن سيو أي لميتا إسديتني صدح صنو يدور بلأنه والله لها قارقة عبادي سنيني مركا كفا إيديستا والله لها قارقة أسوري وهذا قصص كي يقود قلينا لقا أركي طبن كالضنبة ولا لدعيسي قولا وحيت لباتن صنو أيام وحرادين يبيت الأولاد دختر كستي يعافيمات كستي يميل كستو وحلقو الشيء واسوت بيت هذي waxaa dhacday bay tiri inaan wax isbedel ka helin bay tiri waxaan ducaystay bay tiri oo la igula taliyay inaan 10ka dambe dadaalo oo ducaystay bay tiraahday 10ka dambe waxay tiraahday sujuud ayaan hal saac ku ducaysan jiray bay tiri gurigayga ku tukan jiray 2 ragcadood oo kasta sujuud ayaan ku ducaysan jiray ilaahay awlaad isi baan ku ducaysan jiray sidoo kale ilaahay waxaan weydiistay bay tiri irsaaqad ilaahayna waa weydiistay tiri ilaahay maal isiyo labadiiba maanta waa hayaabay tiri alxamdulillah awlaad fara badan buu ilaahay isiyo subxaanahu wa ta'ala sanad walbana waa ducaystaa maalna ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuu isiyo wajida walaalaha qaal ilaahay waa mujiib wax walba wuu ku awoodaa waa xayiul kariim laakiin ficilkii adiga ayaa lagaaga baahaya walaalaha qaaliga sujuudana waa marka adoonku ugu dhow yahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala qisadana wiil ba ka sheekay wadanka Masar u dhashay wuxuu dhahay naafa ayaan ahaa buu dhamaana socon karin buu dhahay dhakhtar kaste iyo xeelad kaste iyo meel kaste waan tagay buu dhahay runtii waxaa la igula taliyay inaad 10ka dambe aad u ducaysto wuxuu yiraahday 10ka dambe iyo maalmahoodaba aad baan u ducaysan habeenada iyo maalmahaba aad baan u ducaysanay wuxuu dhahay maalintii ka dambeysay lugahaygan ku soconay buu dhahay waxaan arkay anoo ushii iska dhigay buu dhahay isku tiirinayn ushii aan haystay anoona isku tiirinayn baa arkay buu dhahay alxamdulillah hal mar baa ilaahay subxaanahu wa ta'ala socodkayga ii furay alxamdulillah qisadana hooyaa ka sheekayso hooyadan waxay tiraahdaa hooyo caraba weeye waxaan raadin jiray bay tiraahday shaqo muddo dheer waan waayay bay tiri shaqo mushaar fiican oo ilmahayga aan ku korsaday baan rabay bay tiri waxay tiri si kasta waa u raadiyay waan waayay bay tiri waxa dhacday bay tiri inaan 10ka dambe ku dadaal inaan ducaysto ilaahay bariyo bay tiraahday alxamdulillah waxa dhacday bay tiri 2 maalmood maalintii labaad inaan shaqo helay bay tiri alxamdulillah qisadan ayadana gabar Tunis u dhalatay baa ka sheekaysay waxay tiraahday xanuun halis aba ay hayay bay tiraahday xanuunka ma sheegin waxay tiri waxaan ducaystay 10ka dambe ee bisha Ramadaan muddo yar kadib Ramadaantii markay dhamaateen ilaahay wuu iga bogsiiyay bay tiraahday qisadana waxa ka sheekay qoys Suuriyaan ah waxay dhaheen wadankayga ku dagaalada ka bilowday bay dhaheen waxaan weyna waxaan cunno aad iyo aad baan u rafaasanayn nolol adag baa galnay bay dhaheen kadib waxa ducaysana 10ka dambe ee bisha Ramadaan oo ducada ku dadaalnay ilaaha raxmaanka raxiimka wuxuu noo soo diray dadna caawiyo maantana nolol ugu sareysa ayaan ku noolnahay bay dhaheen walaalaha qaaliga qisadan ayadana 2 gabdhood oo walaalaaba ka sheekeeyay labadan gabdhood waxay dhaheen qoys dhibaataysan baan ahayn bay tiraahday oo reerkaygu reero fuqara hoose ba ahayn waxa maan haysan dhibaatooyin kalena way jireen oo xanuuno leh kadib waxa dhacday inaan ducaysano 10ka dambe oo aan taajudkii ku dadaalnay oo ducada ku dadaalnay waxa dhacday muddo yar kadib marka Ramadaantii dhamaaday inaan dhibaatadii dhan saan nolol kaga siibay oo maleynayis in la ka dhex bixiyay
الحمد لله رب العالمين qisadan walaalaha qaaliga gabar Soomaaliyeed baa ka sheekaysay gabadhan waxaa la yiraahday waalidkeeda ayaa sadaqa u bixiyay iyadoo tahriib u socota waalidku waxay sameeyeen masaajidada ayay tageen culimada waaweyn ee garacadaaga la dhaho iyo sidoo kale masaajidka iyo dadka ay ku tuhumayeen inay yihiin dad ehlu khayra oo maasha Allah ilaahay ku xiran ayay sadaqa siiyeen waxayna dhaheen noogu duceeyay gabadhii waxaa la yiraahday markay tahriibtay waxay sii madha wadamada tahriibka loo sii maro wadanka South Sudan wadan la dhaho baa la sii mara walaalaha qaariga gabadhii markay halkaas tagtay maasha Allah waxaa dhacday marka inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayr la kulansiiyay gabadhaas sadaqadeedii iyo ducadii waalidkeed iyo ducadii dadkii wanaagsanaa ay u soo duceeyeen inay isheleen wiilka uu yiraahday ha tahriibin aniga ayaa kaa bixinaya lacag layn ah ku gadato ayagoo iskuursan ayaa gabadha ninkii lacagtii siiyey kadibna waxay ku laabatay wadamada laymanka laga gato kadibna layn bay gadatay ayadaa dhooftay wadamada qurbaha tagtay ninkiina ayadaa u dacwootay alxamdulilah ilaa maanta gabadha ducadaasay ku nooshahay axbaabii waayadii hore culimada dadka wanaagsan dadka ehlu khayrka waa laga ducaysan jira walaalaha qaariga tawasulka hadda dadka Soomaaliyeed khaladka ka fahansan yihiin waxa weeye qof aad ogtahay ehlu khayr ehlu cibaada dadka maaragtay ehlu diinka dadka masaajidada iyo culimada dadka garacadaaga oo diinta intaas ku soo dhex jiray oo ehlu quraanka ah noo duceeyay hadii la dhaho walaalaha qaariga ducadoodu mustajaabay weeye walaalaha qaariga ilaahay noo bari subxaanahu wa ta'aala daadahdi marka dadkeena Soomaaliyeed tawasulka waxyaalaha khaladan iyo qabuural istaagiyo waxaas ay macnaheedu ka fahansan yihiin ma ahane lababa hadda baaqi ah ina amaladaada wanaagsan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku weydiisato iyo ina qof wanaagsan oo aad ku ogtahay cibaado iyo maasha Allah inuu yahay qof mustajaabu ducaa oo khayr badan ina dhahdo ay culimada ugu horeysa walaalaha qaari ayaga warasatul anbiya ah ee ugu horeysa ina dhahdid ii ducee ma fahanteen marka maasha Allah dadka ilmaha ka xanuunsan yihiin dadka dhibaatooyinka hayaan dadka axwaashoodu macni isku ka xirxiran tahay ka ducaysta culimada ka ducaysta walaalaha qaariga oo wax fiican siiya sadaqa intaa siisaan qofka wuu ku farxay qof baahan oo ehlu qur'aan oo ogtahay intaa sadaqa siisa waxa dhahdaa ii duceede ilaa raxmaanka raxiimka ducada waxay dhihi jireen dadkii ducaa liman ishtara qofkii ducada waa la iibsadaa marka qof wanaagsan ku ogtahay dee baahi oo maanta waxba haynin laakiin ehlu khayr oo ehlu cibaada ah hadaa intaa wax siiso uu ku farxo uu ku duceeyo si kal iyo laaba buu kugu duceynaya marka wakaas walaalaha qaariga gabadhaasi ilaa maanta bay ku nooshay maasha Allah ayadoo maasha Allah ilmaheedii diiniyan u wanaagsan yihiin wadamada diinta u joogaan qurbii ka soo tagtay farxado ku nool maasha Allah tabaaraka raxmaan markeedii horena ducadii waalidkeed iyo macnaheedu maxay dadka ehlu khayrka looga soo duceeyay ku liibaantay marka wakaas walaalaha qaariga qisadan walaalaha qaariga iyadana gabar baa ka sheekaysay gabadhan waxay tiri waxaan jeclaa bay tiri inay la wadaago qisadayda ramadaanta aan arkay bay tiraahday shalay waxaan bilaabay bay tiri khatmadii afraad ee aan quraanka khatimayo subaxii fajrkaan bilaabay bay tiri maantay waxay tiraahday markii aan akhriyay bay tiraahday khadmadii labaad markaan akhriyay waan seexday waxaana ku riyooday bay tiri roob badan oo da'aya waxay tiraahday tusisay bay tiraahday roobkii macni anoo hurda inaan maqlayo bay tiri codka roobka bay tiraahday alxamdulilah waxay tiraahday wallaahi waxaan dareemayaa bay tiraahday gabdhahaygiyo qisadan farxadaha roobka da'aya inaan ku helay bay tiri waan ooyay markaan soo kacay inaan ku helay bay tiri quraankaan akhrinayay waayo maalinta halkaa maalina bay khatmadii labaad wadi hal maalina walaalaha qaariga sababtoo ah waan jeclahay bay tiri roobka bay tiraahday muddo ayaan raadinayn roobka bay tiraahday xaafadaha iyaga roobka kuma di'i jirin bay tiraahday inta badan mararka qaarkood waxaan rabi jiray waan ooyi jiray roob inaan helno bay tiri xaafadaha iyaga dadka roob helamaanan ahayn bay tiraahday wadamada carabta gabadha ku noosha runtii akhrinta aayaadka quraanka kariimka iyo dhamaystirka khatmul quraanka dhamaystiray barako weyn iyo khayr iyo farxadaasaan ku helnay bay tiraahday ilaahay subxaanahu وتعالى أنه ويقول حفظيه وحياة بدنا إلهي ويقول سيه بيت هذي مع المير جدهودنا إله الرحمن كرحيم وان كل ميني ساعة ضير مع المير بين كل ميني بيتري وحنا إلهي سبحانه وتعالى ونسيه بيت الروب كارونتي وكذا ما سيري شري مركان أرك وضمضة كريم يلها كريم الروب كده أي بيت ما شاء الله تبارك الرحمن أحبابي بقالة نيروبي روب ترى بضاد يوحى قبصدي دادت بقبصدي دادك قالوا ذا وحين الليهين مسلمين تا أو معنيه صوم كودي cibaadaadkooda sababteeda ayaa roobkan tirada badan uu ku yimid bay dhaheen maasha Allah
aniga waxa ina waa sax waayo nairobi dad badanaa ku nool dadka istikfaarta sameeya 30,000 sameeya macnihii khatamaad quraan badan sameeya muslimiinta ku nool maasha allah tabaaraka raxmaan waa dad aad iyo aad dadka culimadeena ugu badan baa nairobi ku nool maasha allah nairobi waxay dhaheen sabab idinkaa u ah roobkan tirada badan idinkaas sabab u ah bay dhaheen maasha allah tabaaraka raxmaan waa ku faraxsanaa walaahi maasha allah tabaaraka raxmaan waa run walaahi istikfaarta tirada badan ختم القرآن كبدن aan samaynayno ما شاء الله تبارك الرحمن روبku waa barako iyo khayr weeye walaalaha qaaliga ah qisadana walaalayaal gabar baa ka sheekaysay gabadhan waxay tiraahday hooyaday baa qof waxay tiraahday la jeclaatay sadaqaday tiraahday sadaqadaasi waxay ahayd bay tiraahday 100 riyaal bay ahayd bay tiraahday hooyo markay siisay qofkii haweeneyda waxay ahayd haweeney aad u baahan bay tiri oo maskiina bay ahayd bay tiraahday gacanta ayay hooyo u saartay lacagtii bay tiraahday waxayna ahayd bay tiraahday 10ka dambe ee bisha Ramadaan maalmihii u dambeeyay Ramadaan bay ahayd bay tiraahday maalintii ciidda waxa noo yimid bay tiraahday walaalkay oo eedaday dhashay baa noo yimid bay tiri hooyo wuxuu u keenay bay tiri 500 oo riyaal buu u keenay والله markuu hooyo lacagta u dhiibayay oo aan arkayay bay tiri waxaan soo xasuustay bay tiri sadaqadii 100 riyaal ee hooyo maalmo ka hor ay bixisay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu bedelay inay u noqotay shan macnihii xasha 500 inay u noqotay walaalaha qaariga ma sha Allah tabaarak raxmaan runtii sadaqadu waa arrin weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku soo celinayaa sadaqadu maalka ma cuslayso nabiga calayhi salaatu wasalaam sadaqaysta walaalaha qaariga habeenada khayrka badanna haddii aad sadaqaysato waxay la mid tahay 83 sano adoo sadaqaysanaya haddaba walaalaha qaaliga sadaqadii walaaladeen reeqasa halkaas idin soo saaray walaaladeen dhibaato badan baa haysata waa aragtaan bariga dhexe waxa ka socda wadamadii wax tari jiray ayagii baa dhibaato ku socotaaba waa ogtihiin walaaladeen waxay sugayaan dadka Soomaaliyeed bay sugayaan walaalaha qaaliga ah inta ugu badan waxa jira كام dadka Soomaaliyeed walaalaha qaaliga ay quudiyaan Ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala rasaaqay dadka Soomaaliyeed wax taraan oo sugayaan dadka Soomaaliyeed baa jira Sheekh Cabdi Xayi halkaas anaga ku xiranahay bil kastana wixii aan aruuriyo aan ku diraa walaalaha ka soo qayb qaata walaalaha qaaliga walaalka wax yar haystaada xalay Sooma ahayn habeen witr ah walaalaha dhan ma sha Allah boqol konton shilin Kenya mari aan $1 wax u dhigma weey $1 bay walaalaha soo dirayeen si macnihi 83 sano ayagoo sadaqaysanay ugu dhimato walaalaha qaaliga sadaqa yaraan mare laakiin khayrka inaan ka faa'iideysano weeye walaalaha qaaliga ah marka ma sha Allah halka baa idin soo saarayaan lambarada lagu diro hadii Muqdisho joogtay lambarka Muqdisho hadaa joogtay Puntland lambarka Puntland halka baa idin soo saaray walaalaha qaaliga ah hadii aad joogtay Nairobi halkan baa soo saaraya lambarka ana haya ka faa'iideysta walaalaha qaaliga ah oo sadaqaysta beenada khayrka badan adoo 83 sano sadaqaysanaya la mid tahay khayr farxad baa idin rajeynaa walaalaha qaaliga walaaladeen reeqasana u sadaqeey walaalaha qaaliga walaaladeen dhibaatada ugu daran ee ay ka xiran yihiin walaalaha qaaliga meel kasta way runtii maalin dhaweyd waxa arkayay maxay macbar rafax oo loo furay yahuuda walaaladeen waa ogeyd inta dhibaatada haysatay oo la leynayo ay ka xirnaayeen runtii aad iyo aad baa uga carooday laakiin walaalayaal walaaladeen wixii Ilaahay ugu talagalay way dhimanayaan way noolaan doonaan insha Allah wayna guuleysan doonaan walaalaha qaaliga ah Ilaahay waxa uga rajaynaynaa amni Ilaahay waxa uga rajaynaynaa khayr iyo farxad inay ku noolaadaan walaaladeen reeqasa geesiyaashii tagay geesiyaal ka badan inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala siiyo bidii la soo dhaafay 3,000 baa ku dhashay baa la yiraahday magaalada Qasa 3,000 oo cunug oo wiilal u badan baa ku dhashay muujada walaalaha qaal Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu u soo bedelay wuu soo celinaya geesiyaashii tagay marka ma sha Allah anaga ayaana ku fiirina walaalaha qaaliga marka walaaladeen u soo sadaqeeya dadka dhahaya dadkeena Soomaaliyeed baa dhamaanay dadkeena Soomaaliyeed dhibaato meel walba ka xaniman ma haysato runta marka la isku sheego dadkeena Soomaaliyeed sadaqa way u baahan yihiin way jiraan dadka biyo la'aanta hayso sadaqayso halkaasna ku sadaqayso halkaana ku sadaqayso wax ku diiday male laakiin cunsurinimada anaga carab wax naga galamay carab wax waa naga galeen islaamku waa walaalayaal marka walaalka maxay kalbuniyaan bu nabi ku tilmaamay dhis oo kale laba dhis asaas isku dhagan yihiin samaha saas oo kale anaha walaalaha qaariga islaamka kale walaalkiis weeye kan Soomaaliga iyo kan Carabka iyo ka kalaba waa isku mid ka faa'iideyso ehelkaagana si walaalka Soomaaligana si walaalka kale islaamkana si ka qayb qaado sadaqada lagu garab istaagayo walaalaheen reeqasa ku soo dir wixii awoodaada lambarada meesha ku qoran hadaanan awoodin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u bari walaalaheen in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala amni siiyo in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala cadawga uu ka qabto